haweenaydii cusbayd ayaa timid tuuladii ay ku cusbayd waxaana isla markiiba soo dhoweyn xun uga yimid shimbiro deegaanka. warqad cayayaan ah ayaa ku dhacday kabteedii cusbayd taas oo ka nixisay. iyada oo isku dayaysa inay gudaha u gasho guriga ayay si xoog leh u riixday albaabka balse waxa u daatay quful duug ah oo miriray. albaabkii ayaa gilgilmay oo dhulka ku dhacay waxaana ka cararay shimbiro gudaha ku jiray. waxa ay aragtay xaaladda guriga oo aad u liidata waxaana qalbigeeda galay niyad jab weyn. weligeed ma filaynin in ninka ay guursatay qoyskiisu ay saboolnimo intaas leeg ku nool yihiin. isla markii ay naxsanayd ninkeedii aysan weligeed arag ayaa soo galay isaga oo gacan furan ku soo dhoweeyey. wuxuu u soo dhiibay xidhmo ubax ah oo uu horay u diyaariyey. markii ay furatay xidhmadii aad ayay u naxday. ubaxaas waxa uu ahaa mid dahab saafi ah laga sameeyey. gabadha yar ee ninka ayaa aragtay naxdinteeda. iyada oo u malaynaysa inaysan jeclaysan ubaxa gabadhii yareed waxay gacanta u gelisay saacad qaali ah oo ay ku xardhan yihiin dheemanno. haweenayda waxay la yaabtay hantida qarsoon ee ninkan ay ku tilmaameen mid sabool ah. sheekadu waxay noqotay in asalkii hore uu ninkan la ballansanaa walaasheed balse walaasheed oo doonaysay qof hodan ah ay ku gacan sayftay ninkan oo ahaa kalluumaysato degan miyiga ayna ku doodeen inuu leeyahay 2 carruur ah oo ay u baahan tahay daryeel. sidaas darteed walaasheed waxay ku qasabtay inay ninkan u guuriso iyaduna waxay guursatay nin magaalo hodan ah oo la yidhaahdo Jang Shaoye. haweenayda waa lagu qasbay inay aqbasho kalluumaysataha saboolka ah. markii ay timid tuulada 2 carruur ah ee ninkeeda ayaa si diiran u soo dhoweeyey iyagoo si kalgacal leh ugu yeerayaan hooyo. waa ay fahantay in 2 carruur ah ay yihiin kuwii uu ninkeedu dhalay. carruurtu waxay si farxad leh u sheegeen in aabahood uu ku mashquulsan yahay shaqadiisa kalluumaysiga sida Marwa Fertility Center waa xarun caafimaad oo soo celisay farxaddii iyo rajadii qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ku dhawaa inay kala tagaan dhalmala'aan darteed. halkan waxaa lagu daweeyaa dhalmala'aanta waxaa lagu dhisaa mustaqbal. Marwa waa furaha qoyskaaga berri soo booqo ama nagala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda. sidaa darteed ayaga ayaa loo soo diray inay hooyadood soo dhoweeyaan. wiilku wuxuu si degdeg ah u qaaday shandadii hooyadiis isagoo ku tuuraya gaarigii dameerka balse naxariista ayay u damqday waxayna isku dayday inay caawiso. waxaa si lama filaan ah ugu soo dhowaaday dameerkii oo dhinaca ka salaaxay. waxa ay aqbashay in ay fuusho gaariga dameerka iyada oo si tartiib ah u socota ayay la timid gurigii. markii ay aragtay gudaha guriga oo maran oo aan lahayn wax alaab ah oo qiimo leh ayaa niyad jabeeda sii kordhay. waxay sii ogaatay in gurigu uu yahay mid sabool ah waxaana isku dayday inay fariisato. waxa ay doonaysay inay fariisato balse kursigii ay rabtay inay ku fariisato ayaa burburay waxaana u yimid 2 carruur ah oo si kalgacal leh u taageeray.